marka nafta lugaha laga soo siibo oo qaarka hoose oo dhan laga soo bixiyo oo kalxamaha la isugu keeno oo qaraabo ay fiirinayaan qof kasta uu eegayo waxna uma qaban karo qof kasta wuxuu soo jeedinayaa talo sida la yeelo dhakhtarka noocaas la geeyo hadda kale qof la geeyay naqasuraha lagu xiro isaguna wuxuu yaqiinsanayaaba wadanna annahu alfiraaq isaguna wuxuu yaqiini inuu waxa way socdo cidda uusan ku jirin qof kasta waa eegayaa waqtiga noocaas ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga yiri weeye wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun innaga inkaga dhow laakiin nooma jeedaan meesha waxaa joogta malaa'ig isagu waa hirqaadaya naftiisu waxa way soo gurmi qaraabaduna qof walba talow soo jeedinaya qof kasta waxuu dhahayaa sida iyo sida la yeelo kallaa idaa balagati taraaqiya waqiila man raaq wadanna annahu alfiraaq qof kasta waxuu dhahayaa waxaa la oranayaa waxa weeye yaa ku tufa daawo noocee la siiyaa xaggee la geeyaa waqtiga noocaasa malaa'igta ilaahay xaadir weeye qofku wixii uu soo qabsaday intuu noolaa ee waxa weeye uu shaqaysanayay xoogga uu lahaa ayaa maalinkaa ku soo xaadiraya marka nafta laga gurayo oo nafta jirkiisa laga soo bixinayo hadduu yahay mid ilaahay ku xihan malaa'ig qiimo sarrayda oo waxa weeye u bishaarayn oo malaa'igta ilaahay ka mid ah oo wajiyadoo cayf waxa way haystiimayaan ayaa odhanaya iska raaxayso maanta dhibkuuma yaallo daarta lagu wada aakhira weeye waa isaga ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ika anlaa takaafuu walaa taxzanuu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم مالك سوحا كسو حاضريا كو إلهي الرميي كتابك إلهي إلهي آياتك إلهي كتوصنا ملائكة الله سبحانه وتعالى وحي أرميا وحبسية ملوكها قبل ما أنت ملوكو متالله annaga waxa weeye awliya ku ah annaga sokeeyo ku ah adduunya aakhira labadaba wax walba jeclaatana waan heli tii lagu yaboohayay jannadii lagu yaboohayay ee lagu dhihi jira kitaabka Allah ilaali kitaabka ilaahay ilaali ku toosnow janna lagu siinayaa maanta waa ku diyaar ilaahay baa ku martiqaadaya waxba cabsanin sidaasay malaa'igtu waxa weeye qofkan ku dhahayaan isagu waa hilqaadaya jirkiisu waa ruxmaya didid waa ka da'ayaa xanuun waa hayaa laakiin waa loo bishaaraynayaa qaraabaduna waxay rabaan inuu sii joogo isaguna maalinkan joogtaan uma eka maalinkan maalin uu joogayo ma ahan laakiin qofkaanu waa qof ku dadaalay aayaadka alla inuu ilaaliyey midka aayaadka alla aan ilaalin oo kitaabka ilaahay ku toosnaanin maalinkan waxa u yaalla walwal iyo walaac qaraabadu waxay la jecel inuu sii joogo laakiin maalinkan ma joogi karo xoolihiisii ma sii cuni karo islaantiisii dib uguma tegi karo ama islaantii ninkeeda dib u arki maydaba ilmihii abbood ma arkayaan hooyadii wiilkeedii ma arkaydo maalinkan nuucaana waa laga wadaa maalinkan dadka waa la kala wadayaa dadka waa la kala wadi waaduu tilmaamaya rasuulka alleh sala allahu alayh wasalam ou lahaa أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت متك معانا قوية شيك كيس بضيع متك إسلامها يأوياش هذا كلفغين يا إلمها أبرام دقايا إسلام تقرب كدقايا نوشي قوري مقدي كدقايا كهلا شكيو مركا مالك النوع عاصا تتكو الله من نوع مركا موتكو إيمانا يو مت إستغو إلهي كحيرا أو إلهي جعل oo aayadka ilaahay ilaaliyey nafta laga qaadayo xaqan ilaahay ku sugayo iyo mid marka lagu soo xaadirayaba malaa'igtu ay garaacayaan naftiisu ay kala yaaci ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walow taraa idi الظaalimuuna fii ghamaraati اlmowt wاlmalaa'ikatu baasidu aydiihim akhrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuun bima kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaq wa kuntum can aayaatii tastakbiruun maalinkaas waxa weeye haddaad arki lahayd wax weyn ba arki lahayd maalinka waxa weeyaan daalimiinta mashaqaadka mawdka ay ku sugan yihiin oo nafta laga qaadayo oo waxa weeye malaa'igtu ay gacmaha u fidinaya odhanaya naftiinna soo bixiya hadda waxa weeye shalay aayaadkaa la ilaali waayeen
صلاتي بلغوايي حقي الله دورا لغوايي أمة إسلام كايت كنا وقشان لغوايي ما أنت ملائكة ويقراعيان ملائكة ويقراعيان يضربون وجوههم وأدبارهم وحكا قراعيان نبر وجهه أصحابه بقريان مدنا إساقوا إلهي كتاب كيسا كون أخميا ويقبضوا كتابك إلهي كون أخمي أو ويلكوا كتابك إلهي كون أخمي أو وحي إلهي فرصامين أيو أيا سيد الله قصوا حاضر أيا إلهي ووحو قصوا يا قولك حقا قولك حقا إلهي سبحانه وتعالى قصوا يا إلهي سبحانه وتعالى إساق يرويه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي سبحانه وتعالى رب جل وعلا قولك حقا إلهي سبحانه وتعالى قولك حقا وحوك صويا كوا إيمان كله كوا إلهي الرميي آياتك إلهي كن نخمي كتابك إلهي إياريي يا رب جل وعلا مالكاس قولك حقا أو قصويا